Waa maxay sababta ka dambaysa dagaalka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada? Maxay tahay sababta dagaalkan uu ugu soo noqnoqonayo dowlad kasta oo cusub? Maxaa xal ah oo dowladdan casharkii dowladaha hore ka baran kartaa? Ma saxan tahay in la yiraahdo shirkii Garowe ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay waa fashil? Maxayse Puntland ka faa'iidaysa shirkan soo socda ee dowladda iyo dowlad goboleedyada haddii uu shirkii hore fashilmay? Muuqaalkan ayaan ku falanqayn doonaa su'aalahaas iyo kuwo kaleba. Asxaabta ku soo dhawaada Abitay oo ha iloobina inaad subscribe iyo share gareysaan iyo inaad saartaan like. Dhinacyada iska soo horjeeda ee saaxadda siyaasadda Soomaaliya ayaa mar kale isu diyaarinaya dagaal siyaasadeed oo hor leh. Waxaana maalin walba soo ifbaxaya ismaandhaaf iyo sii kala qaybsanaan darawallada masraxa siyaasadda Soomaaliya. Shaxda cusub ee ciyaartan waxaa ku jiri doona jilayaal cusub iyo kuwo hore oo markaani rajo ka qaba in ay ku guulaystaan. Dagaalka u dhexeeya jilayaashan ayaa horseedi doona in abaartu ka sii darto iyo amni darada iyo daadashada dhiiga wiilasha Soomaaliyeed. Tan iyo markii uu Xasan Sheekh ku guulaystay doorashada kubadda siyaasaddu waxay ahayd dhinaca madaxweynaha oo madaxda dowlad goboleedyada waxay sugayeen tallaabada uu qaadayo sababtoo ah mid waa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waxayna eegayeen siyaasaddiisu xaggee u jihaysan doonto. Midda kale wuxuu qayb ka ahaa mucaaradka oo waxay ka sugayeen inuu hagaajiyo waxay ka cabanayeen dowladdii hore. Tallaabooyinka uu madaxweynuhu qaaday 3 bilood ee lasoo dhaafay waxa uu ku foganaa in uu xidhiidh wanaagsan la yeesho waddamada caalamka marka laga reebo Itoobiya. Halkii uu ka xalin lahaa marka hore mashaakilaadka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Waa maxay mashaakilaadkaas, maxayse tahay sababta ay u jiraan? Waxaan ku soo koobi karnaa mashaakilaadkaas 2 arrin oo ah. Kow, Soomaaliya oo ka guuraysa nidaamka dowladda dhexe una guuraysa mid federaal ah ana haysan dastuur lagu heshiiyey oo dhammaystiran. La'aanta dastuur lagu heshiiyey waxay keenaysaa in aynan jirin awood iyo khayraad qaybsi dowladda federaalka iyo maamul goboleedka. Taasoo sababtay in isjiid lagu loolamayo awoodaha iyo kala safnaan ay dhacdo mar kasta. 2, waxaan la iska indhotiri karin doorka ay ka ciyaareen tillaabooyinka ay qaaday dowladda federaalka ka sii dartay ismaandhaafka. Sida la tashi la'aanta dowlad goboleedyada ee ku saabsan wasiirada dowladda federaalka ugu jira. Gaar ahaan magacaabista xilka wasiirka diinta ee Mukhtaar Robow iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Abshir Cumar Haruuse, kuwaasi oo aad xasaasi u ahaa marka laga eego dhinaca Puntland iyo Koonfur Galbeed. Inkastoo ay go'aanka ay dowladdu iska leedahay, balse la tashigooda ayaa wax badan ka caawin lahaa dowladda mustaqbalka. Waxaa kaloo jira tuhunka ah in dowladdan ay qorshaynayso in meesha laga saaro madaxdii dowlad goboleedyada ee taageersanaa madaxweyne Farmaajo iyo Jubbaland oo muddo xileedkii koowaad ee Xasan Sheekh calaaqaadkooda aad u xuma, taasoo aan la xalin. Shirkii Xasan Sheekh iyo Dani ee dhowaan Garowe ku dhex maray ayay isku afgaran waayeen meelo kooban, balse taasi macnaheedu maaha in shirka uu fashilmay. Waxaa jira qodobo badan oo la isku raacsan yahay, balse labada dhinacba waxay go'aansadeen in lagu dhawaaqo qodobadaas gabagabada shirka dhowaan ka furmi doona magaalada Garowe ee u dhexeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada. Inkastoo Dani looga guulaystay doorashada, haddana waxaa muuqata in khaladaadka siyaasadda gudaha ee dowladda federaalka ay fursad weyn u siisay Dani in uu qaato doorka dowladda dhexe ee isku keenidda iyo dhexdhexaadinta dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. Waxayna taasi caddayn u ah diidmada maamul goboleedyada kale in ay kula shiraan dowladda federaalka Muqdisho kalsooni darro awgeed.
madaxweynayaasha Jubbaland Axmed Madoobe iyo Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa labaduba ku dhawaaqay muddo kororsi, waxaana loo badinayaa in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu sidaas oo kale dhowaan samayn doono. Dowlad goboleedyadu way guulaysan doonaan haddii shirka soo socda uu dhaco, xitaa haddii aan la isku afgaran, sababtoo ah haddii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la fadhiisto iyaga shirka waxay ka dhigan tahay in muddo kordhintoodu sharci tahay. Dhinaca kale haddii aanay xukuumaddu shirkaasi ka qaybgelin, dhammaan dowlad goboleedyada ayaa u midoobi doona in ay ka soo horjeestaan, oo Xasan Sheekh waxa uu ka cabbi doonaa isla koobkii farmaajo. Dowladda dhexe maxay qaban kartaa? Dowladdu weli waxay ku jirtaa bilaheedii hore, siyaasaddana waxay isku beddeli kartaa ilbiriqsi. Madaxweynuhu waa in uu leeyahay bisaylka isku soo dhoweynta ummadda, diiraddana lagu saaro waxa muhiimka u ah ummadda ee sidii loo wajihi lahaa abaarta ba'an iyo sidii looga adkaan lahaa Al-shabaab. Gunaanadka talada ku socota siyaasiyiinta iyo madaxda waa siyaasadda aasaasiga ah waxay ku boorinaysaa inaadan cadow ka samaysan meel aad saaxiib ka samayn karto. Waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen muuqaalkan, fadlan la wadaag asxaabtaada. Dhammaadka waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato iyo salaama.